بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم waxaan ila taagan fanaan Axmed Cabdiraxmaan ka tirsan fanaaniinta gobolka Saaxil kaasoo fikirkiisa ka weydiinayno soo dhaw telefishinka caalamiga Xorriya. walaal waan dhawahay aad baad mahadsan tahay. TV-gan wuxuu ka mid yahay TV-yada caalamiga ah ee private-ka wana TV aanu aad ugu baahnayn haddii aan fikirkayga ka dhiibto iyo waxyaabaha aan jecelahay inaad ku soo kordhisaan TV-gan horta anu waxbaan xiiseeyaa waxaan xiiseeyaa anigu hidaha iyo dhaqanka waxaan jecelahay barnaamijyaadka ka hadlaya hidaha iyo dhaqanka in lagu soo kordhiyo oo aad u xiiseeyo waxaan oran lahaa markaa taas noo soo siyaadiya sidoo kale maxay hayday fankuna uu soo hoosgelaya wax kalena oo aan xiiseeyno way jiraano filmaanta hindiga afaan barojkana noo soo daayay baan oran lahaa anigu. Okay Axmed, ma jiraan fanaaniin aad taageerto aad nagu oran lahayd maanta dadtiin shaqaale Xorriya TV noo daara ama noo soo geliya hawada? aad iyo aad way jiraan. horta waxaan aad u jecelahay fanaaniintii hore ayaan aad u taageeraan jecelahay. Fanaaniintii hore aad ka jeceshay? waxaan ka jecelahay horta xagga ragga haddii aan idhaahdo fanaan xasan aadan samatar xagga dumarka haddaan idhaahdona Khadra Daahir marka iyo kuwa badan oo lamida ayaan jeclaan lahaa heesii hore qaranka ahaa in laga soo daayo kuwan oo jecelahay. aad iyo aad madsanta fikirkaaga wanaagsan san nala wadaagtay aad baan kuugu mahadcelinayaa. ku soo dhawaada Liibaan telefishinka caalamiga Xorriya TV maxaad ka aaminsantahay telefishinka Xorriya TV ama maxaad noogu soo kordhin lahayd telefishinka Xorriya TV haddana shaqaaleysi? bismillaahir rahmaanir rahiim. horta magacaygu waa Liibaan Cabdi Xaashi kuna magac dheer Liibaan Bulshaawi. horta aad baan ugu faraxsanahay TV-ga Xorriya TV wala TV aan u baahnayn haddaan nahay bahda fanaaniinta aad baan u soo dhaweynayaa waxaan horta ka codsanayaa TV-ga aad horta waxaan u jecelahay fanaankii aadka u daadaweynaa aadkana way codka macaana boqorkii codka Maxamed Salmaan Tubay ayaan horta aad u codsanay in la soo daayo aniga. ma jeceshahay waxyaalo kale oo taageerto fanaaniinta marka looga imaado aad nagu oran lahayd Xorriya TV igu noo soo daaya ma nagu soo kordhiyo? ها وهلك أحمد عبد الرحمن horta أحمد عبد الرحمن ما كويس تاعي aad ku waxaan u taageeraa horta waxaan ka codsanayaa TV-ga filmaanta fan project noo soo daayaan. aad iyo aad maadsantahay fikirkaaga wanaagsan saad nooga aqbashaan waxaan jeclaanaynaa insha Allah dilaa ka dhigo inaanu ku soo diino xalaad naga codsato aad iyo aad baad mahadsantahay walaalo. hadda waxaan la soo istaagay fanaan Qamar Suugaan fanaan aad u caana dadkuna aad u taageeraan ku soo dhaw fanaan telefishinka caalamiga Xorriya TV. aad baan ugu dhawahay walaashay. maxaad nagu soo kordhin lahayd fikirkaaga waa muhiim inaanu ku tixgelino oo aanu oran lahayd soo daay haddaan nahay shaqaalaha Xorriya TV. waxaan ku darsanayaa fikirkayga uu yahay horta waa inuu TV-gu noqdaa mid xorriyatul qawl leh waa inuu hadba waaqaca dhabtee taagan ka hadlaa iyo hadba xaaladda ummadda ku sugan tahay. sidoo kale waxaan ka codsanaynaa in barnaamijyo tayo leh noo soo daayo. ma jirta fanaaniin aad taageerto aad naga codsan lahayd inaan ku soo anigu fanaaniinta Soomaaliyeed oo badan baan taageeraa. ma sheegi kartaa fanaaniinta magacadooda saan kula wadaagna fikirkaaga oo kugu soo deeno? wallahi fanaaniin badan oo aad u taageeraa jiraan midhiya laba haddaan maqalkan ku soo koobsiraa ana soo koobi karin. laakiin waan ku soo deena fanaaniin baan ku soo deena. طبعا ده فنانين بدن بس aad iyo aad mahadsan tahay walaal Qamar Suugaani aad baan kugu mahadcelinay sida wanaagsan aad fikirkaaga noo wadaagtay garabkayga waxa taagan walaasha Qamar oo ah fanaanadeeduna sidoo kale aad loo taageero aad noocaana ku soo dhaw Qamar telefishinka caalamiga Xorriya TV fikirkaaga waa muhiim maxaad nagu soo kordhin lahayd inaan hadana shaqaale Xorriya TV inaanu sameeyno? waan ku dhawahay marka hore walaashii Samiir Kayf waan ku soo dhaweynayaa adiguna TV-ga in badan waan sugeynay imaansanadii ilaahay sidan rabnay uu noo yeelay ani ahaan shakhsi ahaanteeda waxaan dhihi lahaay yani de mar walba wixii bulshadu jecel yihiin in lagu soo kordhiyo qaasatan dadku de fanaaniintii hore ay taageeraan heesihii hore sida caruurta kartoomaadka filmaantii waxaayo kale shakhsi ahaanteeda ahaan waxaan dhihi lahaa waxaan jeclahay in la soo taayo haddii aan ka hadlo fanaaniintii hore حبيب حسن توحو يا محمد موجي دمان بلشدة الصومال لان أدبن السلامية قاصة شقالة حرية تيفي
aad iyo aad mahadsantahay salaantaasi annaguna ka sheelaabayaan kaaga qaadnay aad baan kuugu mahadcelinaa sida ugu wanaagsan fikirkaaga noogu soo kordhisay iyo sida ugu wanaagsan raygaaga noogu dhibatay aad baad u mahadsantahay ku soo dhawaad walaalahiis telefishinka caalamiga Xorriya TV maxaad naga codsan lahayd inaan hadana shaqale Xorriya TV inaan hawada idin soo galnaa maxaa taageeraysaa horta marka hore waxaan ku bilaabay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib TV-gu wuu cusub yahay faa'iidadiisa iyo khasaarihiisaba weli mid la arkay maaha marka haddana dhalinyarta reer Somaliland meel kasta jooga haddana waa TV la wada sugayay waanu sacabtamaynaa horta TV-ga marka koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan leenahay welcome TV-ga waxa looga baahay wax aan TV-yadii hore u keen siiba ahaan waxaan ka codsanayaa TV-ga inuu dhalinyarta xooga saaro dhalinyarteena Soomaaliland dhalinyarteena tahriiban haddii ay siin lahaa waxay teemkooda ku ودفهم سابانو مالينيا مركا waxaan leeyahay in haseeshe waxaan ka codsan lahaa TV-ga siyaasadda inuu ka dheeraado ama waxyaabahan dadku inta falaqeynayaan wax qabyaalad ah inuu noqdo TV bulshadu u siman tahay ayaan rajeynayaa inuu TV-gana noqdo oo keena waxyaabo aan hore loo keenin dhalinyarta xooga saara waxyaabo la jeceliis kullu soogaantii hore aad loo jecel yahay halkan waxaan ka salaamay haday maqliso boqoradii Soomaaliland fanka aan isla yahayba anigu waxay noqon lahayd hadii la oran lahaa fikirkaaga boqoradii fanka aan ka dhigi lahaaba Khadra Daahir aad baan uga salaamaya heeseen nabciga aad baan u wada salaamay fanaaniintii waaweyn mid iyo laba kuma soo koobi karay aadna wada mahadsantiin aad iyo aad ku ugu mahadcelinaa sida ugu wanaagsan fikirkaaga nooga dhibatay